taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani ee qurba jooga ayaa waxa ay maanta gaadhi cusub ay guddoonsiiyeen mujaahid Cabdi Ibraahim oo ku caanbaxay ereyga Ila Meerayso waxaana gaadhigaasi mujaahid Ila Meerayso guddoonsiiyay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Murudijeex mudane Xamse Ciise oo ay soo wakiisheen qurba jooga gaadhigan cusub ugu deeqay mujaahidka anigoo gudoomiyaha gobolka Murudijeex xisbiga wadani waxa maanta noo farxad ah inaanu halkan aan ku wareejino gaarigan mujaahid Cabdi Ibraahim Cabdille mujaahid Ila Meerayso oo runtii qurba jooga xisbiga taageera ee dibadda ay u soo direen isla markaana anigoo gudoomiyihii gobolka ay soo wakiisheen ayaan doonayaa inaan ku wareejiyo mujaahid Ila Meerayso runtii waxaan leenahay waa noo farxad weeyaan mujaahidka ay soo maamuseen waxaan leeyahay aad iyo aad ba u mahadsantiin hadaatiin qurba jooga xisbiga wadani ee taageerayaasha mar labaad iyo mar saddexaad ba waan idin mahad celinaynaa mujaahidkuna runtii waa mujaahid wadanka soo halgamay wadanka xaq badan ku lahaa runtii waxaan leeyahay mujaahid waxaan gaarigan iyo wax kale ka badan ba xaq baad u lahayd mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan leeyahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qurba jooga xisbiga insha Allah bidillah kariim waxaan doonayaa inaan goobta markaa ku wareejiyo gaariga ay soo iibiyeen oo aniga ay soo wakiisheen inaan ku wareejiyo mujaahid Cabdi Ibraahim Cabdille mujaahid Ila Meerayso runtii halkan uu goobjoog ka yahay waan idin mahadnaqayaa Yusuf Nuux oo isna qurba jooga xisbiga qurbaha runtii isna oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo oo ragii runtii hawshan isagu laftiisu gacan libax leh ka soo qayb qaatay aad iyo aad baad mahadsantiin sidoo kale waxa isna madashaasi gaariga lagu guddoonsiinayay mujaahidka ka hadlay Yusuf Nuux Tadhase oo kamid ah taageerayaasha xisbiga wadani ee qurba jooga waxaana uu sheegay in mujaahidku uu mudan yahay in gaarigan iyo wax ka weynba la guddoonsiyo marka hore waxaan halkan mahadnaq aad u ballaaran uga soo jeedinayaa gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Murudijeex Xamse Ciise Cabdi Shire runtii aan oran karo muddadii uu xilka hayay waxyaalo fara badan ayuu gobolka ka bedelay waxa noo farxada waxa agteeda taagan midigteyda adeerkay mujaahid Cabdi Ila Meerayso oo caan ah runtii taariikhda sanadkii tagay kamid raga lagu xasuusanayo mujaahid waxaan salaan kaaga sidaa qurba joogtii taageerayaashii xisbiga wadani boonka iga soo garaacaya gaariga aad maanta arkayso waa dhalinyar taageerta xisbiga wadani ayaa kuugu tala gashay oo anigu aqoon isku leenahay oo Xamsiya aqoon isku leeyihiin mujaahid dhalinyartaasi muddadoo ku gaabnayd ayay gaarigan maanta ku soo direen waxaanay ballan qaadeen haddii ilaahay ira kan iyo mid ka weynba inaad xaq u leedahay xisbiga wadani waxa aan ku jirnaa abaabul iyo sidii aan dhiig cusub ugu shubi lahayn xisbiga wadani haddaan nahay dhalinyarta qurbaha joogta iyo kuwa gudaha joogaba waxaan halkan runtii aad uga mahad celinayaa dhalinyartii faraha badneed ee la soo xidhiidhay Sadaam Xasan Dhugad oo Finland jooga Hilaal oo kale oo isaguna jooga Jarmalka iyo Cabdifataax Qalinle iyo Cabdifataax internet rag fara badan mujaahid salaana waan kaaga sidaa gaarigaana way kugu soo wareejiyeen sidoo kale waxaan u mahadnaqanaa wada shaqaynta fiican ee naga dhaxaysa gudoomiyaha aanu had iyo jeer aanu aad ka jecelahay Xamse Ciise Cabdi aad baad mahadsantahay Xamse ugu dambeyn mujaahid Cabdi Ibraahim Ila Meerayso oo gaarigaasi gudoomiye ayaa waxa uu mahadnaqay qurba jooga xisbiga mucaaridka ee wadani ee maanta gaarigan cusub ugu deeqay ad celinayaa qurba joogta Soomaaliland gaar ahaan xisbiga wadani taageera iyo qulqul joogtaba gaariga ay soo diray ii soo wakiishay gudoomiyaha gobolka Xamse Ciise Cabdi Shire waan ka gudoomay waa iyagana waan u mahadnaqayaa